الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وعليك السلام يا شعب وينها الجمهورية الصوماليلاند يا بعض الصحافة حرطة وقهرين رمضان كريم سووا نكسين دمان شعوب المسلمين قارهان شعب كرير صوماليلاند قدو يدي بدبا وحن إلهي كبرينا إن أبارت كتير تودن كينه وينقصوا شبيو مضر خير غباه وأن ددي يدو يمدنا إن يقال فنا ينسيه ما أنت وحندون يعني مرة بعد كهذلو حالة مصيبة إنه سوى كورونا يلا حريدا ضبكي قبصدي سوق وين جمهورية الصوماليلاند واحد أو شوف بالي كودي أبريل لما كنا يلا لباتن سوق سوها متكمدة لفدبر تدغالها ودن كين إسلام مركانا أي كتير ثنايين نرش قويس بدن وكمدة شعب كجمهورية الصوماليلاند هبيكي مصيبة دعضي سوق واهين وحكمدها مسؤولين تيوسو الرئيسي تجاوب كضبك وقبصدي وحن عندها كواركي دنيده قبتي وحن دقيها يكون مغلي عدد كديلا لها كسب بحي سوق مروجده يورك طالة تعلي هالكاس ورتي تابتي وحن مركاها دال كسته أو شعب يدولة بل بحيني سي لو سمت بحين لها أنتي إن قلنتي balse nasiib darro dadaal kasta oo la isu geeyay waxa ka awood batay qadarka Alle oo aanay cidina baajin karin waxa nahay dad islaam ah boqolkiiba boqol muslimiina oo rumaysan qadarka Eebe kiisa wanaagsan iyo kiisa aan wanaagsanaynba walaalayaal habeenkii mucaarad iyo muxaafid ciidan iyo shacab waxaynu ka midaysnayn ولينا كم إذا يصنعي سيدات كعيروبي هنتيجه دو هالك كل دماتي لوجو جرمن لها ما أنتنا دي بيوديسكو ده حولين تو ده يكسو كبشدو ده لوجا قيب قادر لها لحدنا إنه يسوق جرمن لهين دي بدنا إنه جر هذين لهين عاومو يجعن جرجر ولا ليال سيدا ودوقتهين سوق واهن ما markii ugu horeysay ee dhibtan oo kale soo gaadho ama duruufo adag oo kale soo marto balse adkaysiga iyo samirka dadkayga waxay ku guuleysteen inay dib u soo kabtaan maantana waxa ku kalsoonahay kartida ku jirta ganacsatadeena inay dib u dhisi karaan iyagoo kaashanaya dalkooda dadkooda iyo cidii kale ee gacan ka geysataba waayo واتي هور لو يري رغوا كي كفا ee hadana kaca salka aynu boorka ka tumanno waxaynu dib u yagleeli doonaa inagoo isku tashanayna iskaashanayna inaynu halkii aynu taagnayn meel ka sareysa gaadhno markasta waxaynu ku tiirsanaan doonaa taageerada Eebe walaalayaal waxaan rabaa inaanu talooyin ka soo jeedino suuqa dibidhiskiisa iyo dib u habayntiisa talaabooyinkaas oo aan u aragno xisbi ahaan iyo musharax ahaanba inay wax weyn ku kordhinayaan hanaanka dib u soo kabashada suuqa waaheen ee hadda qorshaheeda la dhigayo kow waxaan dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan iyo beesha caalamkaba ka codsanayaa in lala shaqeeyo gudiyada kala duwan ee jira hadii ay tahay gudiga heer qaran gudiga heer ganacsi iyo gudiyada kale ee jiri karaba gudiyadaas oo aan aragno in wixii talo iyo taakulaahba lagu soo hagaajiyo isla markaana laga fogaado hanaan kasta oo wiiqaya shaqada gudiyadaas kana leexin kara wadada dib u soo kabashada suuqa waaheen waxaanu soo jeedinaynaa gudiyada hawsha gacanta ku haya inay abuuraan
guddi baadhis oo heer qaran ah oo baadha dhibka baaxadiisa waxa sababay dhibta iyo sida looga hortagi karo mustaqbalka musiibadan oo kale sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa in la sameeyo guddi qiimeyn ah oo si qoto dheer u qiimeysa oo u baadha dhaqaalaha baaxadda leh ee naga burburay noocyada isugu jiray isla markaana diiwaan gelisa dadka hantidoodu ku baabaaday 3 waxaanu sidoo kale ayidaynaa in dhammaan kaalmada maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ahba lagu soo hagaajiyo khasnada guddiga heer qaran si ay noogu noqoto marjac cid walba wixii ay bixinayso ay ku soo hagaajiso isla markaana laga digtoonaado wax kasta oo keeni kara in la gacan togaaleeyo dhaqaalaha dib u dhiska iyo dib u kaabashada suuqa waaheen lagana fogaado wax kasta oo tuhun dhalin kara golaha deegaanka ee la doortay ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dadaalaya waxaan u soo jeedin lahaa in ganacsatadii suuqa waaheen sida ugu dhaqsaha badan loo geeyo goobaha ku meel gaadha oo ay ganacsigooda ku sii wataan gaar ahaan bisha Ramadaan inta suuqa dhismihiisa iyo qorshihiisa la wado isla markaana si guud loo dedejiyo hawsha dib u habaynta suuqa waaheen dhawaanahanba waxaan maqlaynay oo dhageheena ku soo dhacayay dhagaha bulshada inuu bilaabmay khilaaf laga baaqsan karo balse laga yaabo in dad yowdanaalehi ay dabada ka riixayaan oo tilmaamaya cidda hawsha suuqa waaheen dib u dhiska gacanta ku haynaysa isla markaana mas'uuliyadeeda qaadaysa taasna waxaan leeyahay inaga oo wadan sharci leh xeerar lagu dhaqmo leh oo dejisan isla markaana in badan lagu soo shaqeynayay waxa ceeb iyo dhagxumo ah in maanta suuqa dib u dhiskiisa la siyaasadeeyo oo la carqaladeeyo arrinkaasi waanu ka digaynaa mana aha mid la aqbali karo oo la qaadan karo sidoo kale waxaan ogsoonahay suuqa waaheen waxa uu ka kooban yahay ganacsiyo ku meel gaadh ah oo loo yaqaanay harka dhismayaal ay leeyihiin shacabku iyo dhismayaal suuqii hore oo ay leedahay dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa maamulkeedana gacanta ku hayso haddaba sida uu dhigayo xeerka maamulka dhulka magaalooyinka xeer number 17 2001 xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka xeer number 23 2019 xeerarka kala xadeynta nidaamka xukuumadda iyo hay'adaha madaxa bannaan ee xeer number 17 2015 iyo dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobadiisa 109 110 111 iyo 112 waa in dib u dhiska suuqa waaheen iyo maamulkiisa loo daayo golaha deegaanka caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa dawladda dhaxana ay qaadato doorku shuruucdu siinayo waxaanu si milgale iyo qadarin leh ugu mahadnaqayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay deminta dabka suuqa waaheen oo ugu horeeyaan ciidanka dabdamiska Jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii muujiyay cudud iyo caqli lagaga hortagay in magaalada inteeda kale ku fido masiibada dabka suuqa waaheen iskaashatada booyadaha ee shacabka Soomaaliland oo si mutadawacnimo ah uga qayb galay deminta dabka doorkii ugu weynaana qaatay golaha deegaanka ee la doortay naftood horayaasha ciidamada qaranka ee kala duwan shacbi weynaha caasimadda Hargeysa gurmadka debdebiska ee inooga yimi kililka Soomaaliyeed ee Itoobiya waxa sidoo kale u mahadnaqayaa cid kasta oo maal iyo taageero inoo muujisay waqtigan adag gaar ahaan dalalka aynu jaarka nahay ee Itoobiya Soomaaliya iyo Djibouti sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa wadamada saaxiibadeena beesha caalamka oo dhamaantood wakiiladoodu gaadheen goobta masiibadu ka dhacday madaxdooduna fariimo inoo soo direen wadamadaas oo kala ah Mareykanka
ingiriiska sweden denmark turkey iyo dawladda isu taga imaaraadka carabta waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa haweenka dhalinyarada iyo hablaha iyo wiilasha caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo Hargeysa oo ciidamada qaranka iyo hawlwadeennada u fidiyay garab iyo gaashaan laxaad leh oo aan leeyahay dhammaantood ilaahay jazaay khayr qaba haydinka siiyo miisaanka xasanaadkana haydinku daro Ramadaan Kariim salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh